maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka umacayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka umacayne mugdigii ka maydhay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan waa mar kale iyo xiisadeennii iyo barnaamijkii ka baro tv-ga qaranka iyo idaacadda raadiyo hargeysa. waa xiisadeennii shanaad ayay noqonaysaa haddii aan la yidhaahdo. waxay noo socday jabtarkeenii trigonometriga, markaa wuxuu noqonayaa cashirkii trigonometriga qeybtii labaad ee saamiyadii trigonometriga. tusaalayaashoodii ayaan qaadanaynaa. markaa tusaalihii ugu horreeyey baan hadda ka shaqaynaynaa iyo tusaalaha labaad. markaa xiisadaha dambe haddii aan la yidhaahdo ayaynu halkaa kasii wadaynaa iyo tusaalaha kale. tusaalaha koowaad waxa uu noqonayaa raadi saamiyada trigonometriga ee xagasha fiiqan ee ba. markaa xagasha fiiqan ee ba ayaa laynoo calaamadeeyey. haddii aan xaga laynoo sheegin ma garanayno darisku halka uu noqonayo, waayo darisku wuxuu u dhexeeyaa inay xagasha 90 digriga ama 90 digrii xagasha quman iyo sidoo kale xagasha fiiqan buu u dhexeeya. markaa xagal haddii aan lagu calaamadeyn xagashii fiiqnayd dariskiiyo horjeedaha ma kala saari kartid. hadda waa laynoo calaamadeeyey, waxaa layna yidhi xagashii fiiqnayd waa ba. markaa ba'daas inagoo angalkii ka dhiganayna ayaa waxaan soo saaraynaa saamiyadii trigonometriga, saynkii, cosaynkii iyo tanjadkii intaba waan soo saaraynaa. waayahay, si aynu u soo saarno saynka xagasha waxaa lagu helayo horjeedo loo qaybiyey shakaal, shakaalkii ma haysano. koska xagasha waxaa lagu helaya arjasan loo qaybiyo shakaal, shakaalkii ma haysano. keliya taanka un baynu soo saari karnaa. markaa si aynu labadii kale u helno waa inaan dhinaca saddexaad ee saddexagalka soo saarnaa, maadaama oo aan layna siin. markaa dhinaca saddexaad ee saddexagalka inagoo ka faaidaysanayna cashirkii ka horeeyey ee aragtidii Pythagoras, waxaa layna siiyey laba dhinac. dhinaca saddexaad ee saddexagalka sidaan kusoo saaraynaa waxaan isticmaalaynaa marka aragtidii Pythagoras ee odhanaysay inay dhinaca dheer oo la laba jibaaray waxay kula mid tahay laba jibaarka labada dhinac ee kale oo la isku daray, ama wadarta laba jibaarada labada dhinac ee kale. markaa si aan u soo saarno dhinaca ugu dheer waa inaad aragtidii Pythagoras isticmaashaa. aragtidii Pythagoras marka inagoo ku shaqaynayna waxaan odhanaynaa dhinaca ku calaamadsan ba iyo ja waa dhararkaase waxaan odhanaynaa ba ja la isku wergareeyey waxay kula mid tahay labada dhinac ee kale oo la isku wergareeyey mid walboo la isu geeyey. markaa dhinaca 3 centimeter ama 3 centimeter oo la laba jibaaray oo loo geeyey 4 centimeter oo la laba jibaaray. waayahay, baja oo la laba jibaaray waxay kula mid tahay dhinaca ugu dheer baynu baja u qaadanay, waxay noola mid tahay 3 hadaa laba jibaarno waa 9 centimeter, hadaa laba jibaarto waa centimeter square ama centimeter la laba jibaaray, plus 4 centimeter na laba jibaar waa 16 centimeter la laba jibaaray bay noqonaysaa. waayahay, baja oo laba jibaaran waxay kula mid tahay labadan isugee waa 25 labada centimeter in laba jibaarana mid ka soo qaado waa centimeter la laba jibaaray. waayo inagu baja kaliya aynu rabnaa. dhinac walba waa inaad xididka ka saartaa, xididkiiyo laba jibaarku way isgoosanayaan. markaa baja waxay kula mid tahay 25 xididka ka saar waa 5 centimeter la laba jibaarana xididka ka saar waa centimeter kaliya. dhinacii ugu dheeraa hadda waan helnay waa 5 centimeter, 5 centimeter weeyaan. hadda markaa waxaynu soo saaraynaa saamiyadii trigonometriga saddexda ahaa ee saynka, cosaynka iyo tanjadka. saynkan ku horeynaynaa. saynka xagasha b inay ba ku calaamadsan waxa uu inoola mid yahay horjeedaha oo loo qaybiyo shakaalka. horjeedihii markaa maxaa lagu siiyey 3 centimeter, waxaad u qaybisaa shakaalkiiyo 5 centimeter. labadaa markaa isu qaybiso 0.6 weeyaan.
labada sentimitir maadaama isku qaybsan yihiin way isgoosanayaan marka 0.6 keliyaata ama 0 inay eber dhibic 6 ayay noqonaysaa qoska xagasha b ama ba ku calaamadsan waxa uu noqonayaa inay dariskoo loo qaybiyo shakaalka waa daris loo qaybiyo shakaal dariskii waxa lagu siiyey 4 sentimitir shakaalkiina waxa lagu siiyey 5 sentimitir sentimitir iyo sentimitir way isla baxayaan 4na 5 u qaybi waxaad helaysaa inay eber dhibic 8 waaye taanka xagasha taan b waxay noqonaysaa horjeedo loo qaybiyey daris horjeedii inay waa horjeedo loo qaybiyey daris horjeedii waxa layna siiyey 3 sentimitir dariskiina waxa lagu siiyey 4 sentimitir labada sentimitir isku jar 4 waxaad u qaybisaa 3 waxaa noqonayaa eber dhibic 7 iyo 5 ama 0.75 ayuu noqonayaa waayahay haddii aan soo koobo tusaalaheena koowaad ee ku shaqaynta saamiyada trigonometriga waxaa lagu yidhi waxaad raadi saamiyada trigonometriga markaa saamiyadii trigonometriga waxaa lagaa rabaa sin iyo cos iyo tan ee xagasha b inaad soo saarto si aan u soo saarno markaa laba dhinac baa given inoo ahaa ama layna siiyey dhinaca saddexaad maynaan haysan dhinaca saddexaad waa inaan la soo baxnaa mar haddaan saddexdoodiiba soo saarayno markaa si aad dhinacii saddexaad ula soo baxdo cashirkeenii hore ayaa markaa inoo suurtagelinaya ama inoo fududaynaya si aan u helno dhinaca saddexaad ee saddexagalka markaa dhinacii saddexaad inagoo aragtidii Pythagoras isticmaalayna ayaan la soo baxnay waxa inoo soo baxay 5 sentimitir markaa saynka xagasha b waxa inoo noqday horjeedo loo qaybiyey shakaal markaa wuxuu inoo soo baxay inay eber dhibic 6 qiimahaas inoo soo baxay koska xagasha waa daris loo qaybiyey shakaal taanka xagasha waa horjeedo loo qaybiyey daris qiimayaashii markaa saasay ku soo baxeen waayo tusaalaheena labaad ee ku shaqaynta saamiyada trigonometriga waxaa laynagu yidhi raadi jooga geedka dhinaca b c markaa dhinaca baca ku calaamadsan ee u taagan geedka joogiisii ama sidaasaabaan odhan karnaaba geedka joogiisii baan ku calaamadsan karnaa waxaad soo saartaa dhinaca markaa ama geedka joogiisaad soo saaraysa ama dhinaca inay baca ku calaamadsan ama b c ayaa soo saaraysaa waayahay geedkaas markaa geedkaasi xaggiisa ugu sarreysa harhkiisu waxa uu dhulka la samaynayaa inay dhulka uu la samaynayaa xagal kacsan oo dhulka ka kacsan oo 29 digriya halka uu harhkiisu ku dhacay iyo geedku barta uu ku beeran yahay ku taagan yahay waxay isku jirtaa masaafo 12 mitir waayahay jooga geedka soo saar iminka qaabka inoo sawiran ama buuggaaga ardayga kugu yaala ama samuurada ka muuqda saddexagal buu u qayb eegyahay marka waxaad haysataa dariskiina waad haysataa jooga geedkiina horjeedu inoo noqonaya xagalna waad haysataa marka si fudud saamiyadii trigonometriga kuu fududaynaya inaad la soo baxdo jooga geedku dhulka wuxuu la samaynayaa xagal 90 digriya xagal quman ayuu joogu dhulka la samaynaya waxaa jooga geedkoo lagaa rabo inay iyo sidoo kale waxaad haysataa geedka halka uu taagan yahay iyo harhkiisu halka uu ku dhaco masaafada u dhaxayso inoo noqonaysa dariskii iyo xagal baad haysataa xagashaa dhulka ka kacsanaya uu geedka harhkiisu la sameeyey dhulka oo 29 digriya qaabkaasuu markaa saddexagal qaabkiisii oo kale ayuu inoo noqday markaa saddexagalkaas waxaad haysataa imika haddaan saamiyadii trigonometriga dhinacyadii ku ablay garayno ama aan ku qaadano waxay noqonaysaa joogii waxa weeye horjeede iyo daris iyo xagal waxa isugu keen xidhaya saddexdii taanka isugu keen xidhaya oo taanka ahaa taanka xagasha ayaa ahaa inay horjeedo loo qaybiyey daris marka waxaan odhanaynaa taan 29 digrii waxa inoola mid yahay horjeedo loo qaybiyey daris marka halkii horjeeda waxaan u qaadanaynaa b c divided by dariskii oo 12 mitira waxaan odhanaynaa taanka xagasha 29 digrii ah waxay inoola mid tahay joogii geedka oo b c oo loo qaybiyey 12 mitir sidaa markay tahay ardayo oo ay isla eegi u dhaxayso labada qiime ee qaybtana ay jajab u qoran tahay qaybtana jajab bay u qorantahay waxaa u qarsoon hal
talantaali baad iskugu dhufanaysaa. waayahay jooga dhulkoo b c inoogu taagan jooga geedkoo b c inoogu taagan wuxuu ku dhacayaa 1ka 12 mitir na wuxuu ku dhacayaa taanka xagasha. sidaasaad markaa iskugu dhufanaysaa, talantaali ayaad iskugu dhufanaysaa. waayahay labadaas markaan isku dhufano b c waxay noola mid tahay b c 1 ku dhufade waa b c 1 ama joogii geedkee b c inoogu taagnaa haddaan hal ku dhufano waa b c 1 halku waxba kama bedelayo isku dhufashada. 12 mitirna waxaad ku dhufataa tan 29 taanka xagasha tan 29 degree. waayahay joogii dhulkiina geedka oo uu taagan yahay b c waxay kula mid tahay 12 mitir waxaad ku dhufataa tan 29 degree. tan 29 degree markaan ku idhaahdo 29ka si toos ah ugu dhufanin 12ka. buuggaaga tusaha xagga dambe ku yaala ee ay ku qoran tahay saamiyada trigonometriga ee sin x iyo cos x iyo tan x ee ay dhinaca kolomka ina dhinaca dheerna ay ku qoran tahay ama dhidibka taaganna ay ku qoran tahay xaglihii ka jiifana ay ku qoran tahay minutes. labadoodu markaa xagga taankaa tagaysaa 29 degree iyo 0 minute halkay iska jiraan qiimaha ku yaala ayuu kula mid noqonayaa tan 29 degree. marka tan 29 degree inta badan waa lagu siinayaa xaglaha qiimahooga oo haddii lagu idhaahdo tan 29 degree intaasuu kula mid yahay baa lagu odhanayaa ilaa lama xafidaye. haddii lagu idhaahdo sidoo kale haddii xaga loo baahan yahay costedi oo kale waa lagu siinaya 0.260. haddii lagu idhaahdo sintedi oo kale mar walba xaglaha saamiyada trigonometrigu waa siin markaad xisaabinayso. waay markaa tan 29 degree inagoo tusaa isticmaalaynaa waxa uu inoola mid yahay ama halkan given uu inoo yahay ama siin uu inoo yahay waxa uu inoola mid yahay 0.2543. jooga geedka waxa uu noqonayaa labadanoo la isku dhuftay. simbali labadan isku dhufo. labada markaan isku dhufano maxaan helaynaa 0.2543 ama eber dhibic 2 4 3 haddaad 12 ku dhufato maxaad helaysaa ardayo? waayahay 6 8 10 11 3 4 5 5 eber 6 11 5 6 waxaad helaysaa 6.6 mitir baad helaysaa. geedka joogiisu intaasuu soo baxaya. marka waad soo duubaysaa jooga geedka u taagan b c waxay kula mid noqonaysaa 6.7. nambarkaasi haddii uu 5 yahay ama uu ka badan yahay hal baad ka soo qaadanaysaa oo kanaad ku kordhinaysaa. dabadeed waxaan qornay 6.7 mitir ayuu geedka dhererkiisu noqonayaa. hiisadeenu maanta markaa halkaas inoogu joogaysaa. hiisadan hiisada ku xigta intaanu iskugu imanayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona